السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا صاحب يال الكان نجد دعوانا يسوى دايمالي برتني وبرلقوا فلنقيا في كيدا خنك يسوعان تسوى مالي ذا سيد بلنتين وهايت وين نصاب بندقنا قروح ذا يعلم وكجرا فنك سوى مالي ذا ما أنت وحنسلا فيرين دورنا قرآن كريم كأه يسوعان تينا سيد أمود أكسون هاي نبي كستاوي لهاي صادري وحال صار راعي معجزو وحنا معجزة لو قد يجري أنت بدن وح أمد الله دري مركز عيسى يسوع أما ما أركتها وأركته وحوينه وأركته سيدي نبي الله موسى معجزة لو قد يجي وشي نقونيسي أبيسدا يجعنتي سعدان كنقونيسي ما دام أمد الله دري مركز أكتو وحوين كأها سحر كا وحوين سرعات كأه سيدا سوكله نبي الله محمد نبي نجي كي قدم به إلهي وصادره وحامرت معجزين كيسي كمدها قرآن كريم ومعجزة كمدها معجزات كي ونبي نصر راعي إلهي سبحانه وتعالى وحنا مارت معجزة القرآن وتكمدها معجزة دي سرلقات ما دام أمدي مركز نبي الله صادره حل جاسي حق وضحوين كأها شعرك جويجا أفتهني ماذا يوقفك بليقة قرآن كينو وحوكج جانجو أي هاي أما وكفر ليها وحكست شرعي وها أنك لقد عربيت جويجا iyo ma aragtay suugaanta waxaan isla arki doonaa in quraankeenu mucjisadiisu aanay ku ekeyn oo kaliya luqadda carabiga ah iyo xilligii nabiga uu joogay maadaama nabi maxamed loo soo diray kaafatan linnaas anagana aan kamid nahay ummadii nabi maxamed loo diray quraankaana loo soo dejiyay waxaan ku tusi doonaa in mucjisada suugaaneed ee quraanka ku jirta aanay ku ekeyn afka carabiga kaliya oo laga heli karo afkeena Soomaaliga ah suugaanteena waxaa jira barcabiryo badan oo iska waafaqsan yihiin quraanka kariimka ah xagga luqad ahaan waxaan soo qaadanaynaa ilaa laba tusaale oo nagaga filan inaan ku ogaano in suugaanteena iyo quraanka ma aragtay xagga luqadda ay isku fadhiyaan bal aan ku horeyno gabaygii dhiqle oo ka sameeyay sheekadii caanka ahayd ee qayb libaaxa iyo ma aragtay habar dugaago idil intii ma aragtay hilba ay qasheen oo libaaxii dhulwa u wakiisho yiri dhawaayo noo qaybi hilbaha ay dhulwaagina barsiiyay libaaxa barna u reebay habar dugaag libaaxii inta ka carooday rabaxa ku qaaday isha soo riday deetana loo wakiishay dawaco oo libaaxu yiri dawaco ay qaybi iyana ma aragtay ay u qaybiday neefkii dhamaala ay siisay libaaxii ma aragtay habar dugaagna ay weydiiyeen su'aalaha dawacay maxaa inoo qadisay waa ka anaga intaas dhan khalqi leegnahay maxaa libaaxa kaligiisa u siiday neefkii iyana ku jawaabtay waa cabsaday ma aragtay idinba u jeedaan intaas oo ma aragtay oo gabyaaga ka sameeyay suugaan waxaan soo qaadanaynaa inta naga qusaydo maansadaasi waxay habar dugaag leedahay waxa la yiri qabiil ma leedayoy qayliyaha aare inagoo qurun dhana maxaa qada inoo diiday iyana waxay ku jawaabtay duqiino qabweynaa waka qooqa loo dilayay qadarkii ilaah iyo rabbaan quud ka sugayay qudhiidan u yaabay miyaan idin qasaartay dawac su'aal baa la weydiiyay iyana su'aal bay ku jawaabtay haddana aan jawaab ku dhinnayn waxa la yiri maxaa noo qadaysan anagoo inta leh iyana waxay tir nafteeda waa cabsaday miyaan idin qasaartay aan ku fiirino quraanka wuxuu ilaahay quraanka ku leeyahay yawma naqulu li jahannama hal imtala'ati wa taqul hal min mazid marka aan ku dhahno jahannam marka aan ku dhahno ma buuxsantay iyana ku soo warcelido wax dheeraad ah miyaa la helayaa ma aragtay hab suugaaneedka quraanku uu adeegsaday halkaasi waa su'aal looga jawaabay haddana aan jawaab ku dhinnayn jahannam way miyaad buuxsantay dheeraad ma helayaa dawac markii la weydiiyay su'aasha maxay noo qadisay iyana tiri qudhiidaan u yaabay miyaan idin qasaartay halkaas ayaa ah barcabireedka ay iska waafaqsan yihiin quraanka kariimka iyo suugaanta Soomaalida tusaalaha labadaan fiirino sahal macalin ciise heestiisii caanka ahayd ee korodoy wuxuu leeyahay korodoy komu miraashay koronkormudiidoy hadii jeeraale anaga markaan amaanta ma aragtay midabka ah aan qaadanayno waxaan isticmaalnaa casaan iyo cadaan sida saxad ahna midabka bini'aadamku ku qurxoon yahay ma aha casaan iyo cadaan inta badan lagama helaba casaan waa sida dhiiga cadaankana waa sida caanaha abwaan sahal isagoo ma aragtay gabar ku amaanay midabkeedu uu leeyahay korodoy kobu miraashay wuxuu yiri kor cadii markaas hadana ma aragtay wuxuu ku jibiyay cadaantiisa adan ugu qaadan caay ama ma aragtay habaar ama cudur sida baraskii adan u qaadan maadaama kalarka saxda ibn aadamka laga rabo cadaan ahayn ayaa wuxuu ku jibiyay cadaantii kobu miraashi kowanka waa geed ma aragtay geed mirooda oo mirihiisana la cuno aragtay mirihiisana waa kalarka jaalaha ah oo baylilo kalarka loo yaqaan jaalaha qafiifka ah oo kalarka ibn aadan ma aragtay uu yeesho kan geed lagu tashbiihiyaa kan ugu dhow ayuu kowanku yahay korodoy markuu yiri wuxuu ku jibiyay cadaantii si aad adiga aad nagu qaadan caay ama cudur aad nagu qaadan koban miraashi cadaan ma aha waxaad kalarka aaga egtahay geedka kobanka la yiraa midhiisa bal aan quraanka ku fiirino
markii nabiyullaahi ibraahim qomkiisii ay u shideen dabkii weynaa ay ku rideen ilaahay wuxuu kaga badbaadiyay aayadii oo naga warramay wuxuu yiri leeyahay qulnaa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibraahim naare noqo mid qabow ah culimadu waxay ku fasiraan aayadan hadii inta lagu ekeen lahaa nabi wuxuu dhiman lahaa qabow ayuu dhiman lahaa wa salaaman ayaa looga qafiifiyay dhibaatadii qabowga ma aragtay war la sheegay hadana lagu qafiifiyay hadana hadal kale ayuu quraanka isticmaalay kuuni bardan qabow noqo hadana qabowgaas iyo noqon mid dhibaato leh wa salaaman qabow ma aragtay nabadgelyo u noqo sahal wuxuu adeegsaday kor oo dooy wuxuu ku jibiyay cadaantii كوبو ميراشي عدانت أي شيء قررتها أبحن وعانها أبحن وكوبو ميراشي جيت كمان كليرة مريسا أنت أن ما أرتك كسو أفنيرينا كليب كيني أنك جهل ديني القرآن كي سجانته وأنكو عدينين إن معجزة القرآن كينو حيل كاستأجرته أنا وقتي يقوم يوم تجارة إنكو أكين أما سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.